lama aadayo Jubbaland lama aadi karo, Puntland lama aadi karo, xataa Hirshabelle iyo Galmudug waa u jeedeen madaxweynaha isagoo qosliyo ayuu macnaha dadkiisa dhex fadhiyey. intaa ku tusaale qaata dadka digil imirifle waa inuu caqligooda shaqeeya in daba dheeflimo iyo horgalnimo maanta iyagoo 30 sano dowlad la'aan ah inay maanta ay ku faraxsan yihiin oo dad kala qaad u noqdaan dantooda kuma jirto ha iska daayaan. magaaladaas magac baa yaal kaliya magaalo ma taal meeshaas maamul lama yaal insha allahu cadowgana waa laga dulqaadi doonaa iyagaa nafli caariya hal arbaaxood ayaan dhaweed mid lamid ah u baahan yahay kaliya bis taan waa lagu dhifanaya dooleedmo way ka faraxsanaa halgankan inaan ku soo biiro maanta oo aan qayb ka noqdo muddo badan baa qalbiga ku hayay laakiin maanta noqoto inaan imaado waxaan idin sheegaya anigu idinka qayb idinka ka mid ahay labadan qof Cabdiwahaab iyo wasiirka waa reer qasax dheere haddii qasax dheere dadka jooga meesha kama joogo cidlo way cidlo ma hayn meesha dad baa joogay anigu waa ku soo biiro haddii alla idmo doorkeenaan qaadanaynaa annagu cidna soo qasabtay malaha dareenkeenana soo kaxeeyey sidaa darteed insha allahu wax badan baan kusoo kordhin doonaa waddankana waa la xureyn doonaa haddaan idinka horeymo baydhabo macnaha xaaladeeda 3 maalin 5 maalin ma aqaan baad idinka laftiina maad moogtiin magaaladaas magac baa yaal kaliya magaalo ma taal meeshaas maamul lama yaal insha allahu cadowgana waa laga dulqaadi doonaa iyagaa nafli caariya hal arbaaxood ayaan dhaweed mid lamid ah u baahan yahay kaliya bis taan waa lagu dhifanaya dooleedmo marka waxaan u sheegaya dadka digil iyo mirifle Soomaaliya 30 sano waxay dowlad la'aan u ahayd waxay u ahayd 100 shir baa la qabtay waa lagu heshiin waayay sababta loogu heshiin waayay waxay tahay anaa ku xukumaya iyo adiga ma xukumaysid markii dambe waxaa lagu soo heshiiyey maamul goboleed qolo walba goonigeed inay u lahaato hadda maamul goboleedkeeni ayaan lagu dhegan yahay isma xukumay kartaa annaga aan xukumayna la leeyahay waa arrintii Soomaaliya dowlad la'aanta ay ku hayd wey dadku waxaa loo sheegayaa isteedyada waxaa loo dhisay hadday dowladda dhex burburto in isteedyadii ay shaqeeyaan dowlad dhex laga maarmo annaga taayadii dhaxna wax kuma aanan lahayn tii yaradoo halkaan inoo tiilan waa la qaatay lama aadayo Jubbaland lama aadi karo, Puntland lama aadi karo, xataa Hirshabelle iyo Galmudug waa u jeedeen madaxweynaha isagoo qosliyo ayuu macnaha dadkiisa dhex fadhiyey. intaa ku tusaale qaata dadka digil imirifle waa inuu caqligooda shaqeeya in daba dheeflimo iyo horgalnimo maanta iyagoo 30 sano dowlad la'aan ah inay maanta ay ku faraxsan yihiin oo dad kala qaad u noqdaan dantooda kuma jirto ha iska daayaan ha u soo jeesteen dadkooda iyo dalkooda wax u dhaama ma laha marka waxaan idinku bogaadinaa inaad dalkiina iyo dadkiina u soo jeesataan halgankii garab aad siisaan qofkan garab ka noqon hadhow iyagu la cararaya waxna ma tari doono waad ogtiin waagi 1999 dadkii salballaar la jiray iyagoo dhuumanaya darbiyada fadhiya markii dambe macnaha meelahaas masaakiin ku hayan magac ma laha maqaam ma laha waxay helayaan ma laha adduun aakhirana wax kuma helayaan halganka waa xaq u dirir weeye dadkan waa lagu soo duulay waddankoodii waa loogu yimid inay shahiidaan dagaalmaan xaq bay u leeyihin annaguna taas ayaan aydsannahay wixii nala fikir ana waa imaan doonaan insha allahu rag badan waa imaan doonaan halgankaasaan qayb ka nahay kaasa noo ballana waad mahadsantihiin halkan ka bogaadinaya salaan kale u diraya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudan Cabdicasiis oo runtii dadaal weyn ku bixinaya halganka iyo saraakiishiisaba haddaan kuwaan aan hayn maanta lama hadli lahayn maanta laakiin geesiyaashan intay joogaan waxbaan meel loo jaal waa laga baqayaa waddanka dad buu leeyahay dad xaniyo laga jooga guulaysta aan leeyahay